kulankan oo ahaa mid u dhaxeeyay saxaafadda iyo booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa lagaga hadlay wada shaqaynta saxaafadda ciidamada iyo in saxafiyiinta loo fududeeyo tabinta wararka la xiriira doorashooyinka aqalka sare ee dhawaan ka bilaabanaya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Intii uu socday kulanka labada dhinac waxaa la isku afgartay in saxaafadda ay tagi karaan isla markaana ay ka gudbi karaan baraha koontaroolada ee ciidamada amniga ku samaysteen magaalada Jowhar si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo ay ugu horeyso tabinta doorashada aqalka sare ee dhawaan ka bilaabanaysa magaalada Jowhar. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Cabdishakuur Shaasha oo ka mid ah saxafiyiinta magaalada Jowhar iyo gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Shabeellada Dhexe Ibrahim Cali Nuur. bismillahi rahmaan sharafay noo tahay annagoo ah wariyaasha ka howlgala dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan magaalada Xudunta oo Hirshabelle Jowhar gobolka Shabeellada Dhexe matalayna iyo guud ahaan wariyaashii ka shaqeynayay deegaanada Hirshabelle inaan kulan la qaadano taliska booliiska Hirshabelle inaga oo waxyaabihii ugu badnaa ay aan ka wada hadlaynay ay ahayd sidii loo heli lahaa xiriir wada shaqeyn oo dhow ah oo ay yeeshaan warbaahinta iyo wariyaasha markaan xiriir wada shaqeyn dhow aan leenahay macnaheedu waxa loola jeedaa hadii ay warbaahintu u baahato xogo ku saabsan arrimaha amniga oo booliiska looga baahdo inay booliisku u fududeyn karaan shaqooyinkooda warbaahintu ay heli karaan. waxaan kulan la qaadanay booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle oo wakiil nooga ahaa ama nala joogay gaashaanle taliye diini Roble Axmed afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabelle ciidamada booliiska waxaan kulanka goobjoog ah ka soo qayb galay intooda badan saxafiyiinta ka howlgasha gobolka Shabeellaha Dhexe ama guud ahaan Hirshabelle. ujeedada kulankeena wuxuu ahaa sidii aan isaga xog wareysan lahayn saxafiyiinta ku sugan magaalada Jowhar caasimadda Hirshabelle sida ugu fudud ee ugu suuragali karto sidii ay ku soo tabin lahaayeen doorashooyinka maadaama hadda doorasho aan ku jirno oo isbuucan soo socday bilaaban doonto doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Hirshabelle ku matali doona baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaan ognahay in isbedel uu ku yimid sugidda amniga oo ciidamo badan magaalada ay ku sugan yihiin koontarooladii la soo kordhiyay meelo badan ciidamo ay joogaan habka ugu fudud oo ay wariyaasha ku gaari karaan saxafiyiinta ay ku gaari karaan goobaha doorashada sida ugu fudud ee loogu fududeyn lahaa ayaan kala hadlaynay taliyaha waan isla garanay in saxaafadda waliba saxaafadda madaxa bannaan ayaa inta ku sugan. dhinaca kale afhayeenka booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle gaashaanle diini Roble Axmed ayaa saxaafadda u sheegay in loo fududeyn doono gudashada waajibaadkooda shaqo. farxad ay tahay maanta in maaragtay dhalinyaro Soomaaliyeed oo saxafiyiin ah aan maaragtay kulan qiimo weyn leh aan ku yeelano magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle anagoo ka hadlayna sida aan ku wada shaqeyn lahayn anagoo dhammaanteenba u wada shaqeyna bulshada reer Jowhar ama bulshada Soomaaliyeed ee reer Jowhar. waan kaga mahadceliyaa maanta kulankiina qiimaha badan ee aad uga casuunteen dadkiin bada saxaafadda. waxaan ka wada hadalnay waa maaragtay sidii saxafiyiintu ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda shaqo loogu fududeyn lahaa maadaama deegaanadani ay ka bilowdeen doorashooyinkii. kulanka maanta magaalada Jowhar ay ku yeesheen saxafiyiinta iyo ciidanka booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle waxa uu yimi kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay la kulmayeen saxafiyiinta caqabado ay kala kulmayeen baraha koontaroolada lagu soo kordhiyay magaalada Jowhar taasi oo caqabad ku noqotay shaqada warbaahinta ay ka hayaan magaaladaasi. Cabdicasiis Okay TV Universal Muqdisho.